wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Marwo Ilhaan Maxamed Jaamac ayaa maanta xadhiga ka jartay dhisme hodheel cusub oo laga hirgeliyay magaalada Bur ee xarunta gobolka Togdheer kaas oo lagu magacaabay Hotel Tawakal. Munaasabadda xadhiga jarista hodheel Tawakal ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Ilhaan Maxamed Jaamac, madaxda gobolka Togdheer kan degmada Burco, abwaano, aqoon-yahano, qurbo-joog iyo dadweyne aad u tiro badan. waxaana barbar socotay munaasabadani lagu wanqalayay hoteelka Tawakal casho sharaf ballaadhan oo hoteelka Tawakal u fidiyay kasoo qaybgalayaasha munaasabadani goobjoogka ka ahaa. wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Ilhaan Maxamed Jaamac ayaa ku tilmaamtay hoteelkan Tawakal horumar ballaadhan oo ku soo kordhay magaalada Bur ee xarunta gobolka Togdheer, waxaana halkaasi ugu duceysay wasaaraddu hoteelkan Tawakal. gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Cabdi Daahir Xasan iyo duqa degmada Burco Master Maxamuud Axmed Xasan Dhagalaab ayaa iyaguna si weyn u soo dhaweeyay hoteelkan cusub ee laga hirgeliyay magaalada Bur ee xarunta gobolka Togdheer. Abwaan Maxamed Ibrahim Warsame Hadraabi iyo Sheekh Ali Warsame ayaa iyaguna hadallo dhiirigelin iyo ducaa madashani ka soo jeediyay iyagoo ku baaqay maamulka hoteelkana inay sadaqada ka bixiyaan iyo waxyaabaha kheyraadka. mulkiilaha hoteelkani Tawakal Cabdikariin Xaaji Axmed Xaaji Ibrahim ayaa isna mahad celiyay dadkii ka soo qayb galay furitaanka hoteelkan, ballan qaadana in bulshooyinka gobolkan Togdheer iyo kuwa yimaada hoteelkanba ay adeeg fiican kala kulmi doonaan hoteelkaasi. taasi kadib shabakadda caalamiga ah ee Burco Online qaar ka mid ah dadweynihii halkaasi ka soo qayb galay wax ka weydiisay aragtidoodii ayaa waxay dadweynahaasi yiraahdeen sida tan. waxaa farxad weyn noo ah gebi ahaanba gobolka Togdheer inuu ku soo biray hoteeladii hore u jiray hotel caama oo cusub Tawakal oo gobolka ku soo biray kaas oo aanu aad uga mahadnaqayno eebana uga baryayno inuu noqdo kii tayo iyo barako reeba insha Allah taala oo mahadsantii. waxa weeyaan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay haddaan nahay gobolka Togdheer hoteelkan cusub ee Tawakal ee laga furay magaalada Burco. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, waan u baarigaynaa. waxaanu leenahay runtii goor loo baahnaa iyo goob loo baahnaa ayaa laga aad iyo aad baan ugu faraxsanahay xafladan maanta halkan aanu ka soo qayb galay. insha Allah waanu ka soo qayb gali doonaa oo waanu ka cashayn doonaa hantidiisina. waxaan u hambalyeeynaa hoteelkan cusub ee la furay. aad iyo aad ayaan hotel lagu baahnayn xaafadda. aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay hoteelkan cusub ee la furay. alxamdulillah. Cabdirasaaq Farax Abdullaahi, Cabdirasaaq Nakruma, shabakadda caalamiga ah ee Burco Online xarunta gobolka Togdheer, Burco.